السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جانا كمركلة السودة وذا أدي هذا ومهد سنتين مانتا وسبتي وانا كوذا بيش استياد أغسطو سنة كاللبادو كون إيا اللحية اللباتنكا muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago Cabdikariin Iidle oo ah qofka labaad ee looga shakisan yahay musuqmaasuqii Feeding Our Future 4 sanana baxsad ahaa dhamaadkii bishii June laga soo qabtay Muqdisho horaantii bishii horena la keenay Minnesota ayaa shalay maxkamad federaal ah la hor keenay waxaana uu diiday in uu qirto dambigiisa dib ayaana xabsiga loogu celiyay arrintaasi waan idinla wadaagayaa aabe loo xukumay maalnimadii Khamiista ahayd gobolka Georgia toogasho wiilkiisu uu ka geystay iskuul ku yaala gobolka Georgia ku dhawaad 2 sano ka hor arrintaasi waalidiinta Soomaalida maxay ka baran karaan sidoo kale waan idinla wadaagaya balse marka hore soo dhawaada Cabdikariin Iidle oo aan ognahay in ay dacwadoogayaasha gobolka Minnesota ee federaalka ay leeyihiin waa qofka labaad ee ku eedeysan kiiskii Feeding Our Future oo ku dhawaad lacag 300 milyan oo dollar ah lagu dhacay isla markaana dhamaadkii bishii June laga soo qabtay magaalada Muqdisho 12kii bishii dhamaatay ee July la keenay gobolka Minnesota ayaa maxkamadiisii labaad maalnimadii shalay ahayd la soo taagay Cabdikariin Iidle oo 42 jir ah waxa uu ku eedeysan yahay ilaa iyo 31 dambi oo kala duwan iyo in ka badan lacag 5 milyan oo dollar ah in uu qaatay isla markaana ku dhawaad muddo 4 sano ah ayaa la raadinayay Cabdikariin waxaan ognahay markii la keenay gobolka Minnesota 17 July in maxkamadda la soo taagay qareen ay dawladdu u qabatayna uu yiri waxaan u baahanahay muddo 2 toddobaad ah marka waxa la isdhahayay marka maxkamadda labaad lagu soo celiyo dambigiisa ayuu qiran doonaa laakiin dambigiisa maba uusan qiranin shalay markii maxkamad federaal ah la hor keenay marka waxa uu yiri wax dambi ah malihi sidaas darteed waxa la leeyahay xabsiga ayuu ku sii jirayaa ilaa iyo inta maxkamadeyntiisa ay ka bilaabanayso oo xabsigii ayaana dib loogu celiyay xilliga marka saddexaad oo maxkamadda dib loogu soo celinayana wali lama shaacinin marka hadii uu dhihi lahaa dambi ayaan leeyahay waxay noqon lahayd in la sugo garsooraha laga sugo xilliga uu xukumayo iyo waliba inta sano ee lagu xukumayo laakiin sida waxa muuqata hadda Cabdikariin in uu doortay in la maxkamadeeyo oo maxkamad la saaro isla markaana kiiskiisa xeerbeegti loo dhiibo hadii ay dambi ku helaana waata hadii ay dambi ku waayaana sidoo kale waan arki doonaa arrintaasi hadii halkaasi aan kaga gudbo waxaan ognahay wadanka Mareykanka toogashooyin ayaa waxay ka dhacaan iskuulada kala duwan ee Mareykanka wiil hadda 16 jir ah laakiin sanadkii 2024 bishii sagaalaad isagoo 14 jir ah ayaa waxa toogasho uu ka geystay iskuulkii sare uu dhiganayo la yiraahdo Appalachia High School oo ku yaala gobolka Georgia wiilkaasi waxa uu dilay labadan arday iyo labadan macallin ee idin muuqda qori uu aabihii hadiyad ahaan ugu keenay ayuu soo qaatay iskuulka ayuu la yimid kadibna markii iskuulku uu bilowday kadib ayaa toogashadaasi uu geystay wiilkan markii la qabtay kadib waxa la ogaaday inuu aad u jeclaa dadkii hore toogashooyinka iskuulada uga geysan jiray xitaa qolka gurigiisa uu ka seexanayay sawirada dad hore toogashooyin u geystay ayaa ugu dhagana sidaas darteed aabihiina waa la xiray isagana waa la xiray marka wiilka waxa uu dambigiisa oo ilaa iyo 55 dambi ah uu qirtay toddobaadkii la soo dhaafay maadaama dambigiisa uu qirtay marka talaadadii ayaa garsoore Nicholas Prim oo xukumay talaadadii la soo dhaafay wiilkana waxa lagu xukumay xabsi daa'in aan cafis lahayn waa 16 jir waxaana lagu xukumay xabsi daa'in aan cafis lahayn marka aabihii ayaa isagana la maxkamadeeyay marka bishii March ee sanadkan ayaa aabihii lagu helay dil aan ula kac ahayn iyo waliba dayacad inuu sameeyay oo wiilkiisa qorigan uu soo gaday isla markaana uu meel qafulan uu ku xiri karay wiilkana maskaxiyan isaguna uusan ahayn nin dhaqtar u baahnaa uusan la xiriirin xitaa waxa jirtay dhowr jeer gurigooda in uu boolis ku tagay sidaas darteed aabihii waxa la yiraahdaa Colin Gray oo 50 jir ah wiilkan waxa la yiraahdaa Colt Gray marka aabihii maadaama isagana dambi ay xirbeegtay ay ku heshay waxa uu mutaysan karay 27 dambi oo kala duwan ayaa lagu helay xabsi u dhaxeeya 10 sano ilaa iyo 243 sano sidaas darteed dacwadoogayaashu waxay doonayeen 80 sano in aabaha lagu xukumo qareenkiisuna waxa uu doonayay difaacayo 10 sano in lagu xukumo marka garsooraha ayaa
ayaa waxa uu iska lahaa xukunka maadaama isagu uu dhageysanayay kiiskan. marka hal garsoore ayaa aabaha iyo wiilkaba xukumay 3 maalmood gudahood maadaama wiilka talaadadii la xukumay aabahana khamiistii ayaa la xukumay. marka garsooruhu waxa uu yiri calaamado fara badan ayaa jiray oo ku muuqday aabaha ayuu ku leeyahay wax tilaabana ma aadan qaadin. qoriga wiilka waad ka ilaalin kartay, xabadaha ayaad ka bixin kartay, meel qafulan ayaad gelin kartay, maskaxiyan dhakhtar ayaad la raadin kartay wiilkan. intaasi oo idilba ma aadan samaynin. sidaas darteed waxa uu yiri waxa aad samaysay dayacaadaasi tarteedna aabaha waxa loogu xukumay 15 sano oo xabsi ah. marka arintan waalidiinta Soomaaliyeed maxay ka baran karaan? waxaa laga baran karaa caruurtaada inaad ka warhayso xaaladooda maskaxiyeed iyo waliba dadka ay saaxiib la yihiin. hadda waxaa bilaabatay in waalidiinta loo maxkamadeeyo loona xukumo caruurtooda dambi ay geysteen. sidoo kale waxaa jirtay gobolka Michigan sanadkii 2021 wiil yar oo 16 jir ahaa ayaa isaguna iskuulkiisa intuu tago waxa uu ku dilay 4 qof. saabihi ayaa u soo iibiyeen iraade Jennifer iyo James Crumbley ayaa la dhahayay, wiilkana Ethan ayaa la dhahayay. wiilkii isaga xabsi daa'in aan cafis lahayn ayaa lagu xukumay. hooyada iyo aabihiina waxa lagu xukumay iyagana min 15 sano. marka waxay soo bilaabatay sanadkii 2022 hadda 2026 aan ku jirnana haddana aabahan iyo wiilkiisa waxa aabahan loo xukumay dambi oo wiilkiisa geystay. marka caruurtaada dadka ay la socdaan haddii qori ay soo iibsadaan online-kooda waxyaabahaas oo idil waxa muhiim ah in aad la socoto. haddaba waa kan marka garsoore Nicholas Brim markii uu xukumayay aabaha sida uu xukunku u dhacay. As I indicated, all of your crimes are a form of criminal negligence. None of them require mandatory prison. I don't have a concern that you're going to commit future crimes. You're 55 years old and you have no criminal history. You didn't intend to commit these crimes that you've been convicted of. But the loss here is profound. But I still have to distinguish your acts from the malignant heart and the acts that Colt Gray committed upon the Appalachian School. For each of the murders in the second degree, I'm sentencing you to 15 years in confinement concurrent with one another. For each of the involuntary manslaughters, I'm sentencing you to 10 years confinement concurrent. For each non-merging cruelty to children, I'm sentencing you to 10 years in confinement concurrent. For each non-merging reckless conduct charge, I'm sentencing you to 12 months confinement concurrent. This is an aggregate sentence of 15 years in prison. ugu dambeyntii arintan la yaabka leh ayaan rabaa inaan idin la wadaago. maxkamad ka socota gobolka Massachusetts hooye ayaa waxaa loo maxkamadeynayaa dilka 3 caruur ah oo iyadu ay dhashay. arintan siday ku dhacday bishii January 24 sanadkii 2023 ayay arintan dhacday. waxayna ka dhacday magaalada la yiraahdo Duxbury ee Massachusetts. hooyadan la yiraahdo Lindsay Clancy waxa ay ahayd kalkaaliso waliba qaybta haweenka ay ku dhalaan ayay kalkaaliso ka ahayd. habeenkaas marka saddexdeeda caruurda ay dilayso oo January sanadkii 2023 ninkeeda oo Patrick la yiraahdo ayaa waxa ay u dirtay farmashiye oo ay tiri kaniini iga soo gad maqaaxina cunto iyadoo online ay ka dalabtay ayay tiri soo qaad. intii uu ku maqnaa ayay caruurtii saddexdaa waxay ku ceejisay xarigan lagu aalamiiteeyo oo lagu boodboodo gurigooda qaybta basementiga intay geysay. gabar 5 jir ahayd, wiil 3 jir ahaa iyo wiil kale oo 8 bilood jiray. marka qareenada difaacaya haweeneydan waxa ay leeyihiin haweeneydan maskaxiyan ma aysan fayoobeen. haweenku marka inta badan ay dhalaan waxa jira xanuuno la soo gudboonaado. postpartum psychosis iyo postpartum depression ayay qabtay ay dhaqaatiirtu ay leeyihiin. marka haweeneydan xeerbeegti 12 haweena iyo 6 rag ah ayaa kiiskeeda dhageysanaya. isla markaana waxa la leeyahay haweeneydan dambi may ku leedahay dilka saddexdaasi caruurta ah mise dambi kuma lahan oo maskaxiyan ma aysan fayoobeen. ninkeeda oo hadda xaas kala guursaday isaga qofkii ugu horeeyay marqaati fur ahaan loo soo istaajiyay ayuu ahaa. waxana uu sheegay inaysan dambi lahayn xaaskiisii hore xilligaasi dilka ay geysanaysana aysan fayoobeen. marka haweeneydu markay caruurta dishay waxay samaysay qoorta ayay midi iska marisay. halkan xididooleeda gacanta oo ristiga la yiraahdana sidoo kale midi ay iska marisay. qolkii jiifka oo dabaqa labaad gurigooda ku yeelay daaqada ayayna iska tuurtay. marka intan hoose ayay paralysis ka noqotay. hadda maxkamadda xitaa waxaa jirta in wheelchair ay ku fadhiso marka maxkamadeeda ay socoto oo talaadadii bilaabatay. marka iyadii waa ay badbaatay laakiin
curyaan ayay inta hoose ay ka noqotay inta ka dhiman nolosheeda. Markuu ninkeedu soo laabtay waxa u yimid iyadoo dhulka taala oo qaylinaysa, aaway caruurtii ayuu yiri, waxa ay ku tiray qaybta basementiga ayay joogaan. Isaga ayaa 911 wacay, kadibna kooxihii caafimaadka gurmadka degdega iyo booliska ayaa yimid. Caruurtii wax nafa maba aysan ku jirin, laakiin ayada ayaa isbitaal loola cararay oo la badbaadiyay. Hadda maxkamadeeda ayaa socota. Shalay garsooruhu xeerbeegtida dhageysanaysa kiiskeeda ayaa waxa uu u diray gurigii dilku ka dhacay. Waxa uu yiri guriga taga. Gurigii ayay tageen, mana loo ogolo inay daaqadaha furaan, laakiin qolkii iyadu ay iska tuurtay oo dabaqa labaad. Gurigii ayay soo arkeen, maqaaxidii cuntada uu ka soo qaadayay ninkeeda habeenkaasi, iyo sidoo kalena farmashiyihii sidoo kale waa ay tageen. Arrimihii waa ay soo kormeereen. Maxkamadeedu hadda waa ay socotaa, isla markaana waxaa la filayaa inuu go'aan ka soo baxo. Waan arki doonaa go'aanka ka soo baxo haddii uu noqdo in haweeneydan ay dambi ku leedahay dilka saddexdeedii caruurta ahayd oo ay dishay, amaba in aysan dambi ku lahayn. Inta badan haweenku markay umulaan xanuunadan waa ay la soo gudboonaadeen, inay qaarkood u hiloobaan waalidiintood haddii aysan ka agdhoweyn, in maskaxiyanba aysan dareemaan in ama iyagu ay isdilaan ama caruurtan ay dilaan. Waxaa fiican in dhakhtar qofka lala raadiyo haddii aad waxyaabahaasi oo idil aad ka dareento. Laakiin ninkeeda xitaa waxuu yidhi intii aan farmashiyaha iyo maqaaxida ku maqnaa taleefon ayaan kala hadlayay, isla markaana waxaan dareemayay inay mashquul ahayd. Waxaan isdhahayay maadaama xilli habeen oo jiif loo diyaar garoobay ahayd, caruurtii ayay u qubaynaysaa oo jiif ay u diyaarinaysaa. Kolley ninkeedu waa uu difaacaya. Dhaqaatiirtii ayaa la wareystay, iyada baaray. Waxaa la wareystay kooxihii gurmadka degdega ah oo caruurta markii ugu horeysay u tagay oo arkay inay meyd yihiin. Dharkoodii ay habeenkaasi wateen iyo xariggii ay ku dishay ayaa maxkamadda la keenay. Iyadu aad ayay u oynaysay marka caruurta dharkoodii iyo xariggii ay ku dishayba la soo bandhigay. Waan arki doonaa maxkamadaasina waxyaabaha ka soo kordha. Aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta. Intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idinla sidaa iyo nabadgelyo.